sida lagu soo waramayo waxaa jira in ciidanka Itoobiya ay ka weerareen Darajo iyaga oo go'doomiyay oo la wareegay gaar ahaan goobihii muhiimka ahaa sida dhinaca xuduudda ay dhacdo ee waddanka Suudaan dhinacaas oo taasoo dhanka uga imaneysay iyo dhinaca mataqaanaa saadka oo ay ciidamada Itoobiya ay xoog saarayeen dhanka kale dhinacan gobolka Cafarta oo isna ay ciidan ka soo gudiyeen sida aad ku aragtaan maanta labadan dhamaanta oo Arbaca ahayd waxa kale oo la filayay in ay Eritrea ay kasoo gasho markii ay go'doomiyaan labadan dhinac la dhawaa arkaan gobolka waa kala isku haysto dhinaca Eritrea in iyagana ay kasoo galaan dagaalka la filayo si ay dhinaca ay u cisaan ay u gaayaan ciidamada Tigreega waa arkaan dhinacan qasabada cagaarka ah waa dhinaca ciidanku uu ka galay ciidanka bari dhanka kale waa dhanka xuduudda Suudaan dhacda ciidamada Itoobiya toddobaadkii hadda aan soo dhaafnay waxay xoog saarayeen in ay labadan dhinac ay dhinacan Suudaan inayna u baxsanin saraakiisha Tigreega kuwaas oo ay ku sheegeen in dambiye dagaal ay geysteen taasi hore ku dhigeen dhinacaas ciidanka dhankaas la dhawaa arkaa dhankaas laga geliyay dhanka kale dhankan bari oo gobolka Cafarta ayaa iyagana dagaalka laga soo geliyay ciidanka militariga Itoobiya maanta oo Arbaca ahayd waxay sheegeen in ay qabsadeen dhul fara badan taasi hore ku dhigeen oo gobolada Tigreega ah waxaa ka mid ah dhulka ay qabsadeen magaalada Maarta ayaa ka mid ah dhulka ay qabsadeen ay gaadeen dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in diyaarado drone ah oo saldhigga uu Imaaraadka Macdaarka uu ku leeyahay magaalada Casab ee dalka Eritrea in ay iyagana ay duqeyn ay ka geysteen kuwaas oo waxyaabo qarxa oo waaweyn aad yani ugu tuuray dagaalyahanada TPLF sida wararka lagu soo sheegayo duqeyn oo diyaaradahaasi ay geysteen ayaa jira Imaaraadka oo soo galay dagaalka oo sii balaaranaya generaalka ugu sarreeya ciidanka Itoobiya taliyaha guud General Burhan Juhu ayaa wuxuu sheegay in ay gobollo fara badan ay qabsadeen sida uu hadalka u dhigay goboladaas oo ay ka qabsadeen jabhadda TPLF isaga oo warbaahinta la hadlayay ayaa wuxuu sheegay in ay qabsadeen laba magaalo oo waaweyn oo istiraatiiji ah takale wadada weyn ee isku xidha gobolka Axmaarada magaalada Gondar dhanka kalena halbowlaha ah kaliya ee aada magaalada Maqala ee caasimada gobolka Tigray in la go'doomiyo oo laga soo galo dhanka kale ay ka soo galaan ciidamada Eritrea General Burhan oo hadlaya ayaa wuxuu sheegay maanta oo Arbaca ahayd in guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalkaas oo sidoo hadalka u dhigay dhanka kale xuduudda waddanka Suudaan oo xiran iyadana go'doomin ay wadeen ciidanka Itoobiya toddobaadkii u dambeeyay sida aan ogsoonahay ciidanka Itoobiya horey mayna u soconin goobihii ugu horreeyay la isku farsaaray ayaa lagu horjoogay magaalooyinkan ay ka baxeen hadda ay sheegayaan ay qabsadeen dhanka kale wakaalad oo u hadashay qoladan Tigreega ayaa iyagana waxay warbaahinta u sheegeen in ay tactical military ay uga baxeen goobahaasi ciidamadii galayna waa qalcado aad u waaweyn oo buuraley ah ciidamadii galayna ay dhaheen dib uma soo noqonayaan iyaga oo ay ku tilmaameen in ay Itoobiya gabi ahaanba ay afka dhulka inay u dari doonaan waa sida hadalka u dhigeen General Burhan oo hadlaya hadalkiisii wata ayaa wuxuu sheegay in aynan marnaba ka tanaasuli doonin dagaalkaas oo ay kula jiraan ciidanka TPLF ee gobolka Tigray kaasoo aad moodo hadda in uu wasiiro badan u yeeshay sida wararka ay sheegayaan in gacmo kale ay soo farageliyeen
General Burhanu laakiin wuxuu sheegay in uusan cid kaleeto oo dagaalka lug ku leh in ayna jirin, waa sida uu hadalka u dhigay sida aan wararka aan ku helayno diyaaradaha doonka ee Imaaraadka oo macdarada ay ku leeyihiin saldhigga magaalada Casab ee waddanka Eritrea kasoo kacaya ayaa ciidanka Tigreega aad u waxyeeleeyay, sida ay wararka lagu sheegayo, inkastoo ilaa iyo hadda ayna jirin cid dhexdhexaad ah oo ka hadashay arrinkaasi. Labada dhinacba guulay sheeganayaan, ma jirto cid oo hadda xaqiijin karta wararkaasi, oo ma jirto oo saxaafad madax bannaan oo goobahaasi toos uga soo tebinaya. General Burhanu wuxuu sheegay inay ciidanka Tigray isku dayayaan inay qabsadaan magaalada Addis